بلادن uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa si ballaaran loogu soo dhawaayay deegaanka Tuurka sidoo kalena xadhiga ka jaray xarun caafimaad oo yeelanayso isla deegaanka Tuurka xaruntan ay hirgelisay ama xawaad oo iyadu deegaano badan ka hirgelisay dhismayaal badan oo kamid ah khayriga ana si toos ah xadhiga uga jaray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi isagoo aad ugu mahad celiyay hooyo xawa sidoo kalena sheegay in maanta laga bilaabo xaruntu ay kamid tahay xarumaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan waxa weeye madashii xariga jarka iyo sidoo kale shaqo bilowgii xanaanadan Tuurka oo ay hirgelisay samafale hooyo xawa aadan faarax iyadoo xanaanadan ay ku dhisantay siiska u qabsaa taa bedelkeeda wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu horeeyay wasiir Xasan Maxamed Cali wuxuu hirgeliyay in xanaanadan la dhaweynteedii ay timaado in xanaanadan ay noqoto xanaano shaqeynaysa oo qalabkii lagu shaqeyn lahaa ay diyaar yihiin shaqadeena insha Allah biidmillaahi kariim ay isla maanta si toos ah u bilaami doonto iyadoo xanaanadan ay u diyaar yihiin shaqaalihi ay u diyaar yihiin xanaanadan ay ku diyaar yihiin qalabkii lagu shaqeyn lahaa oo dhameystiran haday tahay dawo haday tahay qalabkii kala duwanaayay sida sariirtii dhalmada sariirihii loogu adeegay hooyada tuulkii kale lagu shaqeyn lahaa ee dhamaan caafimaadka iyadoo ay kamid ka yihiin qalabka diyaarka ah rejistaradii iyo tuuriskii lagu shaqeyn lahaa iyo dhamaanba wixii ay xanaano u baahnayd maanta halkan diyaar ku yihiin shaqadeena insha Allah biidmillaahi kariim sidaas ay ku bilaami doontaa isla maantaba sidaas loogu fidin doonaa adeeg bulshada deegaanka Tuurka iyo deegaanada ku xeeranba xanaanadani mudane wasiir waxay wax weyn ka tari doontaa insha Allah tacaala baahiyaadkii yaalay gobolka Sanaag ee caafimaadka gaar ahaan kuwii degmada Garadag iyadoo tuuladan Tuurku ay ku taalo goob istiraatiiji ah oo u baahan una baahnayd in marka horeba laga dhiso xarun caafimaad hindise ka yimi hooyo xawa aadan faarax ayaa ay ku timi inay dhisanto wasaaradda caafimaadka oo ka shaqeysay falillahi alxamdu bulshadana waxaanu la wadaagaynaa waxqabadku wuu soconaya laakiin ninaan waxba qaban doonin yaanu idin rarin waxa lagu maamaha niman ku furi doonani yaanu ku rarin ayay mahmaad wahay marka sidaas aynu ku shaqeynaa insha Allah dawladdeena la shaqeynaa xisbigeena la shaqeynaa hadii Ilaahay ka dhigo shaqada laga qabanayo wasaaraduna ana ku leedin ka wakiilo degmadii jooga talaabo aanu la socon doonaa insha Allah biidmillaahi kariim bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaynu mahad celinaynaa xawa aadan oo inoo dhistay xanaanadan intan leegay aragtaan inagoo u baahnayn dhulkaynu qaban jiray ee dadka u qaadi jiray ama u soo guran jiray aad garan karaysaan iyada waxa weeye Allah barakeeyo waynu mahad celinaynaa waxaynu kale u mahad celinaynaa wasiirkeena maanta xariga inooga jaray iyo dawladda sida waxaan loogu wareejiyay iyaduna inaga caawisay waxna inoo keentay waxna inoogu maqan inoona hirgeli doonta daawooyin haddii ay tahay ambalaastii haddii ay tahay wixii inaga dhiman intaana waxa inoo hirgelin doona oo lagu wareejiyay maanta aynu ku wareejinay Xasan Gaafadhi dhammaan shaqaalahoo dhan halkan waxa weeyaan magaalada Tuurka waxaa maanta la isugu yimid furitaankii xanaanada Tuurka anigoo ah magacayga Xawa aadan ayaa xanaanadan hirgeliyay anigoo baahida meesha taala arkay iyo maamadu say u dhiban tahay laajkeed ba waxay u kaliftay inaan xanaanadan hirgeliyo marka waxaan la helay dawladeedii Allah barakeeye dhammaan Xasan Gaafadhi inamadiisa oo qalabkii keenay waxa keenay dawooyinkii keenay ana qalabkii wixii ka dhinaa waan keenay marka maanta furitaankeedii ayaan isku nimid muddaduna waa yartaa waqtiga waa nagu kuliyo waa waqti yar waxaanu sheegaynaa shaacinta furitaanka in dadku ka soo qayb galo oo ay rabtay dawooyinkeeda iyo waxqabadkeeda iyo waxay baahidu baahanayeen la siiyo iyadoo ku taala meel xasaasiya sidaan hore u sheegay oo baahida taala aad u ballaaran tahay oo maanta waxa yaala aanay wada kafeen kareenin aanu ka sugayna wixii kale naga dhimanna haddii Ilaahay ka dhigo hadday shaqaalaha naga dhiman yihiin hadday dawooyinkii wixii naga dhiman yihiin wixii awoodooda ah ay noo qaban karaanba aanu baahida u qabno maantana aan iska wareejinay xilkeedii oo ku wareejinayo dawladda haddii Ilaahay ka dhigo anigoo muddo yar oo gaama joogayo ka tagaya laakiin aan ku iska wareejinay xilka Xasan Gaafadhi iyo shaqaalihiisa wareejinayo maanta isugu keenay inaynu furno xanaanadii ay dhismaheeda iyo hindisaheedaba lahayd Xawa aadan faarax qof muxsinada shaqooyin badan qabatay
oo khayriya annaguna ay noqotay inaannu wixii ka dhinnaa inaannu keenno hadday qalab tahay iyo hadday dawo tahayba horumarkuna waa iskaashi ma aha inay dadku wax walba ay ka sugaan dawlad ka sugaan laakiin waxay qabsan karayaan inay qabsadaan waxay qabsan kari waayaanna in maxaan ku dhahday ay dawladdu ay isla garab taagto waa sifaha ugu wanaagsan ee horumarka lagu samayn karo waa tusaale fiican aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xaawo aadan oo dareenkeedu uu aad iyo aad u sarreeyo sida ay dadka baahan iyo adeegyada ay u baahan yihiin ay marba ay ugu fikeri lahayd aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxqabadka ballaadhan ay samaysay annana waxaana saaran wixii qalab ahaa iyo daweyn ahaana inaannu keennay socodsiinteeda iyo ka shaqaysiinteedana inaannu dusha ku qaadannay dadkii ka shaqayn lahaana inay maanta joogaan shaqadiina ay sidaa ku bilaabayaan mas-uuliyaddeedana ay wasaaradda caafimaadku la wareegtay dadkaana wixii ay ku joogi lahaayeen aannu diyaarinnay intaasaannu annagu hadeertona aannu ballan qaadnay maanta wixii ka dambeeyana waa xarun wasaaradda horumarinta caafimaadku leedahaye ma aha mid ay xaawo aadan leedahay waxay ka mid tahay dhismayaasha ay leedahay wasaaraddu ayuu ka mid noqonayaa iyadana waxaan leeyahay dadaalkaa aad waddo baahiima dhammaatee hadda meeshii kuu muuqata ka dadaal waxaa kaloo inoo soo kordhay intii sanadkan ahayd ceelka riigga ah ceelbiyoodka ah oo hawl badan iyo tacab badan aynu gelinnay insha allahu tacaalaana aynu sugayno inay biyahaasu ay noqdaan biyo kafeeya magaalada iyo deegaanka kale ku xeeranba haddii alayaha waa caafimaadku tartiib buu u yimaadaa baa layahaa maanta waxaan idiin sheegayaa degmooyinkan gobolka dhammaantii ama ha ahaato garadag ama ha ahaato ceelfayn ama ha ahaato ceergaabo dhammaan xarumaha caafimaadka ee ka furani way wada shaqaynayaan adeeggii loo baahnaana way bixinayaan meel kale dhimanina ma jirto dad baa dhulkaa la wareegay waxba lama qabane waxa weeyaan wax allaale wax kala dhiman oo caafimaadihii maanta gobolka ma jiro degmadana gaar ahaan ma sii jiro ceelfaynna ma jiro ceergaabana ma jiro waxqabadka ay doonayaan ay sheegayaan ay leeyihiin waxqabad ma dhicin iyaga inoo sheegi doona haddii wixii ina ka dhimanna 5 sannadood ee soo socda haddii alla yidhaahdo inaynu ka faa'iidaysanno oo aynu xukuumadda marka horeba waxqabadka la dhalatay ee waxqabadka aynu maanta hayno loo tirinayo inaynu mar kalena aynugu celinno taasaa dantaynu ku jirtaa taasay tahay in aynu isugu geyno labada gamcood dadka meesha maraya waa dad iska danleya nin waliba dan buu leeyahay waa kursiga ii banneeyo kursiga iiga kac waa iska kursi jacayl waa nin nacayb madaxweynaan ridayaa oo la colloobay dee colaadda hadduu qof la colloobo isagay u taallaa innaga laakiin in laynala collaysiiyo dee wax alaale wax danoo ku jiraa ma jira